waxaan la yiraahdaa social media dad badan buu fashilay dad badan oo markii hore wuxooda qarsan jiray oo mawlacyada kaliya ku samaysan jiray ayaa markii la soo duubay oo baraha bulshada la keenay ayaa waxa cadaatay wixii aan sheegayna inay run tahay ba cadaatay kulligood wixii la sheegayo dhan baraha bulshada la soo dhigay ayadoo maqal iyo muuqaal ayaa la soo dhigay kuwa qaalmo rogonaya oo oranaya qaalmo rogodkaas nabiga ku amaanayna calayhi salaatu wasalaam kuwa la leeyahay waa la iskaga cudur daarayaa waa jidboodeen oo sidii wax waalan dhacdhacahaya habba dhinac u boodahaya kuwa la celcelinayo xarka goostay oo waxa weeyaan maxabadii baa ka tambadisa la leeyahay haayada quraan hadii lagu dul akhriyana mid qalbigiisu dhaqdhaqaaqaya laga yaabo inay ku yartaa iyaadan billaah waa wax shaydaan u qurxiyay war haweenkan dhawaaqaya habeen iyo maalin oo mawlacyada buuxiyay oo xijaabki sharciga aha ka tagay oo codkoodii raggi ka cod dheeraaday oo waxay rabaan ku dhawaaqaya war dumarkiinu ha xishoodeen annaga dumarkeena guryaha joogaan xishoodkii iyo haybadii iyo xijaabkii baa ka muuqata war dumarka xishoodka yaan laga qaadin mawlacyooda lagu celiyo awal sheekada hadda adigu sheegtay tira saas baan yiri adaa lagu tuhmaysanayo waxa la oranayo war been baad sheegaysaa waxaas wax suurtoobiye aqli gal ma aha kulligood wixii la sheegayo dhan baraha bulshada la soo dhigay ayadoo maqal iyo muuqaal ayaa la soo dhigay dacwadani sabar iyo dulqaad ay u baahan tahay iyo qowl wanaagsan iyo dadkaas ayaga in loo turo oo loo naxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin jahli baa aafeeyay wax badan oo kamid ah in loo turo oo loo naxo oo loo daqnado oo loo sabro oo khayrka iyo wanaagga la gaarsiiyo u baahan yihiin ilaahay subhanahu wa ta'ala ilmi naafi'a iyo waxa weeye amal saalix Allah inagu arzaaqo ilaahay inagu arzaaqo maxabada nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay kuwa qiyaamo la soo saaro micigiisa ku ahaadana Allah inaga dhigo kuwii xawdka nabiga ka caba Allah inaga dhigo